الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله وحواياها آد صوبتي أو مجتمع ينكسو بضني جرائمتا يدن بيد فوشح ويكمل تايديلك معنى الآنتا يسي جماعي ضدك إن لو لايو مد قرحية مد قبيالة كدلة مد مقعد دينيت كبابية فروجتي عرضكي الشرفكي لغو حد قدبه دمركي حوق لغو كفصده وهدنا اللديلو اللي خارجيو هدنا كالروني قبله يريركا يعرورته aan qaan gaadhin aan xamili karin ba in hadaf laga dhigto wa falxumo wa arin ugub ah wa wax inaan aqoon jirin wa wax cusub oo aad u falxo in jariimadii hadana inta lagu sameeyo gabadha hadana la duubo haddana baraha bulshada ku kulunta lagu soo tuuro faaxisho intee leeg waay in la dilo oo laga takhaluso imise dambiyo isa saaran waay waxay u baahan tahay arrimaha noocan oo kale markay dhacaan in asbaabtooda la baadho xal rasmiyana loo raadiyo وانا ميد اللي سويدينه ويا محاوحن حل نقون كري ان نبا ميل لا اادايو ميد بدربي لا فوليو ميد بتحليل معين كبخينيو حقيقته سو waxay tahay xalku wuxuu ku jira allihi adoomadan abuurtay kooda wanaagsan iyo kooda xunna yaqaanay waxay ka sameeysan yihiin garanaya sida ay u fikirayaan garanaya qalbigoodana yaqaandhi iyo noocay u qaybsamaan allahaasi tabaaraka wa tacaala shuruucdu ka dajiyay bas baa lagu afjari karaa wixii ka soo haray waa kuday oo aan natiijo lahayn ummadda muslimka ah waxa loo baahan yahay inay u qirooto oo ay ka masayrto oo ay ka xumaato cirdigeeda iyo sharafkeeda in dib loo geysto cirdigu waa masuun cirdiga furuujta dumarka xubnaha taranka waa arin aad shariicadu u ilaalisay ilaa nabigeenu yiraahdo salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ninkii ku yimaado oo reerkaaga ku socda dil hadaa disho waa ahlu naar haduu ku dilana ahlu jannata ilaa heer nabigu wuxuu gaarsiiyay ninka weerarka ee cirdiga ku socda in la dili karo laga takhalusi karay nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxa ka sugan saad ninka la yiraahdo saxaabada kamid raggoodii odayaasha ayaa wuxuu yiri ilaahay baan ku dhaartay hadaan xaaskayga agteeda nin ku arko nin xumaan ku sameeyay seeftan kurka kaga goynaya buri waliba dhinac ugu dhufan maayo afkeedan ku dhufan waa ka takhalusaya warkii nooca ah nabigu gaaray sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxa rasuulku ilaahay saad baa sidaa leh ninkii naagtiisa u dhawaadiy xaaskiisa inuu qoorta ka goynayo sheegay markaasuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waxa la yaabantihiin masayrka iyo qayrada saad miyad la yaabantihiin ilaahay baan ku dhaartay ana ka qiiro badan anigana ilaahay baa iga qiiro badan sidaas daraadeed buu alla wuxuu u xarimay fawaahishta dunuubta fooshaxun zinada iyo liwaadka iyo wixii lamida ayuu ilaahay sidaa darteed u xarimay teeda muuqatiya taqarsoonba umadu waa inay marka qiiro leedahay waa inay danqasho leedahay waa inay ka xajiimooto dumarkeeda in lagu xadgudbo وإلا waxaan noqonaynaa dayuusin sida nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam ninka ehelkiisa xumaanta lagu sameeyo raaliga ka awaa dayuuthna jannada ma gala buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waa waajib sharciya umada wada saaran way
odaygeeda siyaasigeeda culimadeeda dawladdiisa raciyadeeda waajib saaran waay inay cirdiga iyo sharafka la ilaaliyo sida naftaba in loo ilaaliyo ay u tahay dhiigga in loo aqliga in loo ilaaliyo ay u tahay maalka sida loo xifdinayo si ka badan waa in cirdiga iyo sharafka loo ilaaliyo waay su'aashu waxay tahay marka munkaraadkan iyo jaraa'imtan soo noqnoqday sidee lagu afjari karayaa waxa lagu afjari karayaa sidii ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo rasuulkii sallallahu alayhi wasallam ay ku taliyeen in la qaato oo maxay ah kow wa in da'yarta la tarbiyeeyo tarbiyo wanaagsan la tarbiyeeyo wiilasha iyo gabdhaha waa in lagu tarbiyeeyo dhowrsoonaan waa in lagu tarbiyeeyo dadka inay ixtiraamaan waa in lagu tarbiyeeyo inayna ku xadgudbin dadka kale waa inay lagu tarbiyeeyo waxa uu ku samaynayo gabadha dadka kale in macnaheedu ay tahay gabadhiisii iyo walaashii oo kale ta wax lagu samaynayo nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wiil dhalinyaro u yimid wuxuu yiri rasuulka ilaahay oo iidan li fi zinada iidan fasax inaan zinaysto rasuulka ilaahay oo wiil dhalinyaro oo shahwa hayso fasax aan zinayste nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam hooyada ma la jeceshaa in laga zinaysto maya buu yiri walaasha ma la jeceshaa in laga zinaysto maya eedada ma la jeceshahay maya habaryarta ma la rabtaa maya de kuwan adoonaysa inaad ka zinaysataba rag baa la dhashay oo rag bay dhaleen oo eedooyin u yihiin oo habaryaro u yihiin oo hooyooyin u yihiin markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam u yeeray laabtu gacanta ka saaray waana u duceeyay in ilaahay qalbigiisa taahiriyo wiilkii yaraa nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi tarbiya jamiila jiddan ya caruurta iyo da'yarta in lagu tarbiyeeyo inayna xad gudbin wiilasha waxa sameynaya dhaqanka ku kacaya shaki ma laha waalidkood baa dayacay tarbiyadooda haddii waalidkii iyo mas'uuliyiintu tarbiyada ay dayacaan iyo caruurta barbaarintooda wanaagga lagu barbaariyana xayawaankaas oo kala noo koraya ya yeyda dad cunka oo kala mujtamaca ku dhex barbaaraya oo aan naxariis lahayn oo aan insaaniye lahayn oo aan dhaqansho lahayn oo wax alla waxay kala garanayaan aan jirin baa mujtamaca ku dhex barbaaraya laana tarbiyadii baa luntay ibn aadam kana asal waxa uu jahliga iyo dulmiga asal waa sida quraanka kariimku inoo sheegay waa in marka la tarbiyeeyo caruurta qodobka labaad wax weeyaan in nolosha muslimiinta lagu soo celiyo sharciga ilaahay tabaaraka wa tacaala in lagu dabaqo lagu soo celiyo xuduud ilaahayna lagu oofiyo dadka jaraa'imta iyo dambiyada galaya allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yiri qisaasta ruuxi wax dilay in la dilo ruuxi wax dhaawacay in la dhaawaco ruuxi dhibka geystay in laag in loo geysto qisaasta waxa idin ku sugan nolol ba idin ku sugan mujtamaciyo bulshadii qisaasta nolol ba idin ku sugan noloshu maxay tahay bimaana waxa weeye ki wax dilahay waa noolaanaya hadduu og yahay hadduu wax dilo in la dilayo dilkii waa ka baaqsanaya isagii waa noolaanaya waa badbaadaya dadku dili lahaana way badbaadayaan uu ku socdo ayaguna way badbaadayaan mujtamaciina waa badbaadayaayo istiqraar iyo nabadgeliye xasilooni buu helayaa war qisaasta nolol baa idin ku sugan kuwii aqliga lahaayo yaa se fahmi kara waay Soomaalidu waxay yiraahdaan ninna dhiigiisa kama tilaabsado hadduu og yahay wiilkan yarkee faasidkee shuduudku ku dhacay tilaabada hadduu qaado inuusan ka dambaynaynin hadduu og yahay boqol xisaabood buu kala jarayaayo isu geynayaa intuusan ku tilaabsan laakiin hadduu og yahay waxa hadduu sameeyo maalmo in la xidhi kadibna la sii dayn odayaalka qabiilku inuu u ergoon doono la sii dayn doono inuu fakan doono hadduu og yahay asaguna wuu sameyn in ka dambaysana way ku dayan doonaan noloshiya istiqraarkiya nabadgeedu waa fasaadaysa ya ulil albabi inti aqliga lahaydo inti gaala raacday ma munaafiqiinta ma inta fahamkoodii aqligoodu meeshii ilaahay rabay gaari waayay ma ya ulil albabi inta garashada lahow
warqisaasta waxa idin ku sugan iyo xuduudda ilaahay inaad oofisaan nolol baa idin ku sugan istiqraar iyo xasilooni baa idin ku sugan inaad nabad gashaan oo ehelkiinu idin nabad galo oo xoolihiinu nabad galaan oo naftiinu nabad gasho oo dhiigan daadanaya istaago oo dumarkan la kufsanaya uu istaago oo uu dhamaado soo afjarmo walakum fil qisas hayatun halkaasay ku jirtaa ma aha nidaam gaala noo keentay ma aha ما هو بناء وحم الملوقي ما حير تشب أضيال دجيان ما ولكم في القصاص حياة شرع إلهي تبارك وتعالى سأستردد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحوليه حد هل حده وإلى الحدود سكمده والنفل لقوا إلى لنا دين لقوا إلى لنا عقلك لقوا إلى لنا عرضك شرفك لقوا إلى لنا حولها لقوا إلى لنا حد دلك إلهي لقوا استاجي أيات دتك دلك كنا لقوا خير بدن أفرتن صبحات إن الروب هلان أفرتن صبحات أفرتن مع الموضوع إسكوحك إن الروب هلو سو برواقة ما برواقة ذا سوحة كسيتو كفي عنه وناق لقيه لي كبدية إن دتك جرائمتي الدنبية قال يا حدود إله إلا مريو حدك إله إلا مريو لأن حدك السجن الدنبي دافوية الحدود كفارات روح الدنبي قال لنا الدنبي دافوية هي ضحيتي الدنبي قال لنا عدالة بي أطهي مجتمعين استقرار يحسلوني بي أطهي لكن يا فهمي كرا مسلم إلهي يا رسول كي سويحي كي متقرنا يا فهمي كرا قال يا قال الرع ما فهمي كرا يا وح قوانين بنا آدم انتي جدشتين أدوم ضدون إنكم مابولان ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ساستردد هدي لقوابت لقور وريقو حدود إلهي إن لأوفيو ضدك جرائم تقلي اللقو أوفيو ويسي سيادي وينسي كردي بقولان إياكم يالنا ويقلافان دونتا سيدانا واسيدا قرآن الكريم كينو الشيغي وحكم ده سباب تلوبة هي إن لقو أرمها النوعة سوكلا الولد قالمو إن روح الظالم كذنبي قلي دنبينها إن اللي اسكرب تاكي إن اللو دودين إن اللو شفاعين إن اللو إرقينين إن حد كلام مريض نبي صلى الله عليه وسلم وحوليه أرين لا يسكو هايستو روحي قردرنا عدي قرب سيس أو هيلس إلهي عردي سكزول ما إنه كل حسوبيه إلى أكسر النقد وذيك قرب تاجن قبيل كقرب تاجن صاحبك أو أردية كوا نقالها كوب حينية كوا السود دينية كوا حكم كخفيفينية كوا الدونية إن روحي نبك اللوج جيستنا نبك الراعو ضاربك نبك جيستنا إسقو فيو إنه إسكتك كوا الدونية إلهي عردي سكزول مايان إلهي أرنتا كفقان وكتجا ساستراد مظلوم كضحية كبرنا يرتع نفت الذي لي دتك حقوق ذله أيتها اللي سكرب تاجو ظالم كما اللي سكرب تاجو ساستراد هالكاس وكلام مركي مريز حدود مركو إلهي كهل تبارك وتعالى وحول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله حدود مرك اللي أوفينا يا مصلحة كجرتي نحريسي يسن إذين قوانين كندم بيلها مجرم كا حد كمركات كو أوفينا يسان نحريسيين إذين تابني مرسي حد إلهي بقى أورنا إذين كان نحريس بدن إلهي جي حد كان دشيء أيا أدو مديس إذين كان نحريس بدن قال لنا إنه أجمن نحريس بدن نكمل إذا مدحنا مسلمين تقتليه ولي بالصومالي إذا مدحنا نكمل أيان مال أتجني أني علم كلام وحأحر البقلال روح وقعن كل جليال أو دد لا يي أو قرتي أما عديم الله هلي بأحر حرن علم دي وحيوسو تشيدين تلكي نواصع على قبائش وإسلين يسا ديكي وقومانية علمدي waxay u soo jeediyeen war waxani ha istaagee intan aad hayse ay ku cadahayna xadka mariyo hal qisaaso nin alla ninkii ruux dilana qisaas oo ka takhalus oo xadka ilaahay mari saasa isagana u roon mujtamacna u roon wuxuu yiri ma taqaan kuwan hadan laay hay'adihi gaalada qayliyo buuri ya wa xasuuq bay dhahayaan cadaadis baan soo fuuli طيب ومضى مصلحة هذا مياد هرمرين مسجالات رالي قلين بالله عليك حاكم مسلم باته
mujtamaca aad u talisay ahayd inaad mudnaan siiso nabadgelyadoodii iyo istiqraarkooda bedelka aad hay-ada gaala iyo gaala ku raali gelinayso ilaahay xuduudiisana aad u cadilayso tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed daalimka inaan la iska rab taagin waa waxaa ka mid a qodobada muhimka ah ee arrimaha noocan oo kaleeta lagaga hortagi karayo in meesha laga saaro ergada iyo shafaacada odayaasha qabaa'ishii ugaasiyada iyo salaatiinta iyo dadka wajiga leh maxaa yeelay xuduudda ilaahay shafaaca lama geliyo waqtigii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa dhacday haweenayd reer quraysheeda ayaa zinaysatay ayaa waxaan dhihi lahaa wax xadday xoolay xadday odayaashii quraysheed ee gabadhu ka dhalatay waxay og yihiin arrintaasi nebiga hadday gaadho gabadhan in gacanta laga goyn doono markaasaa la tashado waxaa la yidhi war gabadha seen ku badbaadin gabadhu waa qurashiyad waa quraysh yaa waa reerihii carab ugu sharaf badnaa ma gabadh quraysheed baa maanta gacanta laga goyn war saynu ku badbaadinaa innagana ceeb inooga hadhaa waxaa la yidhi yaa kaloo nebiga ku dhiiran karoon usaamo ahayn nebigaa jeclaa sal alla alay wasalam mawlihiisana waa ah war yaa kaloo ku dhiiran kara usaamaha loo diro usaama nebigu u tegay sal alla alay wasalam markaasuu kala hadlay arrintii gabadha nebigu waa cadhooday sala allahu calayh waa xanaaq wuxuu yidhi usaamow maxad ilaahay xuduudiisa ka midaad erga ka tahay ood ka shafeecaysaa miyaa usaamow maxad ilaahay xuduudiisa ka midaad maanta usoo dhigatay inaad ka shafeecdo dadkii inaga horreeyey buu nebigu sal alla alay wasalam waxay ahaan jireen kooda tabarta yar ee daciifka ee wax u ergeeye aan lahayn iyo wax u hadla hadduu xad galo way ka oofin jireen way ku qaadi jireen xugum midka shariifta ee sharafta leh reerka ka dhashay magaca leh wasiirka ah madaxweynaha sheekha ah magaca leh ama reer magac leh ka dhashayda markuu galana way iska sii dayn jireen buu nebigu sal alla alay wasalam ilaahay baan ku dhaartaye faadimadan aan dhalaye gabadhayda hadday xaddo gacantan ka jari buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh gabar ka sharaf badan miyaa ku jirta carab iyo quraysh iyo aadamaha nebi maxamed baa dhalay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waana inta dumarka jannada galaya sayidadoodii way siduu nebigu sheegay sal alla alay wasalam haayuu nebigu usoo qabsada hadday xadi lahayd ma xadayso xaashaa inay xaddo hadday xadi lahayd gacantan ka goyn laha buu nebigu sal alla alay wasalam odayaasha waxaan leeyahay ruclaynaya ee suxul duubaya ee ordaya ee jaraa'imta dadka galay difaacaya allah idin abuurtay ka baqa dadka la dulmiyee lagu xadgudbay u hiiliya daalimka idinka dhashay ee dulmiga geliya xadgudubka samaynaya bedelkaad u shafeecaysaan u ordaysaan ood xabsiyada ka soo daynaysaan xukunka ka khafiifinaysaan qodobka ugu dambeeya wuxuu yahay axibatii fillah inta badan waxyaalaha noocana waxaa keena dhallinyaradeenii iyo da'yarteennii macallimiin baas baa haysata facebook baa haysta filimo ajnabi ah waxaa haysta muxuu ahaayey warbaahintaa haysata carruurtii iyagoon tarbiyo lahayn bay meel baas wax ka qaadanayaan filimada inta badan waxlaynta iyo burburinta iyo dumarka sida loogu xadgudbo iyo sida loo geliyo social mediaha bay baranayaan halkaasay aafadu ka socotaa qaar ka mida khamri cabayaan qaar ka mida daroogiyo qaad bay cunayaan qaar ka mida qashinkaasay baranayaan ayagoon miyir lahayn bay gabdhihii ku dhaqaaqayaan carruurtii yaryarkaabay kufsanayaan carruurtii yaryarkaabay dilayaan lianna wax way miyir ma joogo balaayay barteen qashin bay barteen sidaas daraaddeed waxay u baahantay waxyaalaha noocaasa wada jir in loola dagaalamo qaadkaa kowka qaadkan laga ganacsanayo xoolaheenniina dhammeeyey gabdhaheennii cirdigoodiina ku xadgudbay dhallinyarteenniina halkaa dhigay ummadaha kalena xoolaha milyanada ay ka samaynayaan ayaa kowka ah waxaa sidaa u gelaya dhallinyaradeenna haddii qaadkii la fasaxo oo khamradii la fasaxo oo mukhadiraadkii la fasaxo oo qashinkii dhallinyarada la baro tarbiyo wanaagsanna horay aysan u jirin soo waxaasoo kale inay yimaadaan maaha mas-uuliyiinta madaxda andimada culimada odayaasha cid kasta oo mas-uula waxaa waajib ku ah sidii loola dagaalami lahaa waxyaalaha dhallinyarada fasaadinaya lianna waxa weye waa qariib waana wax la yaab leh waa waxaana horay u jiri jirin war ninkan kadaata shahwa hadday ku hayso balaayo allah kugu ridee war shahwa hadday ku hayso mid kula eg ama kaa weyn oo xumaanta aad doonayso kula ogol baabad heli kartaaye gabadha 10 jirka maxaa kuu geeyey ee waxan baan xamili karayba maxaad ka doonto maxaad ka raasid shaki ma laha filim buu arkay shaki ma laha gaaluu ku arkay lianna gaalada qaad waxaa jira shuduudkaa qaba qaar waxaa jira shuduudkaa qaba oo jiran wadaadada kaniisadaha qaar baa qaba shuduudkaa oo jiran
oo naagta leeg uguma baxdo taweyn uguma baxdo ilmaha yarkeesa 6 jirka qaar bay ugu baxdaa qaar bay 5 jirka ugu baxdaa qaar bay 10 jirka ugu baxdaa shuduudkii nooca ahaba ummadan soo galay sidaas daraadeed waxay u baahan tahay waqfa waahida tilaaba adag iyo qaraar adag iyo go'aan adag oo la fuliyo oo ilaahay shariicadiisa waafaqsan u baa lagu soo afjari karaa waxa kale waad ciyaaraysaan dhiigna waa jooji weydeen qashinna waa jooji weydeen gaala nidaamkeeda intaad soo ergisateen oo wax ka samayseenna waa joojin kari weydeen Mareykan baa joojin la oo reer galbeed baa joojin la oo caalamkii baa joojin la oo maalin walba riboodiyada taqriirka soo baxaya wixii siyaadaya nidaamkay dejiyeen baa yeelaya ka ilaahay baa tabaaraka wa tacaala waxaliya gaal nidaam ka yimidna marna waxalin maayo dhiigna joojin maayo فحش الزنا اغتصاب الدمر لك في صدنا تشوتشين معي شرع إلهي قات صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك